munaasabad lagu shaacinaya koox ku ciyaari doonta magaca wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka isla markaana ay wasaaraddu qaabishay kooxdaasi ayaa maanta ka dhacday hoolka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka waxaana munaasabadani goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka mudane maxamed xaaji aadan cilmi wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha boos mire maxamed agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka jamaal cabdi muuse gudoomiyaha guddida xuquuqlisaanka qaranka maxamed baaruud xubno ka kala socda labada wasaaradood iyo dhalinyarada kooxda ku ciyaari doonta magaca wasaaradda waxaana ugu horaalkaasi ka hadlay agaasimaha maamulka iyo lacagta ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka cabdicasiid jaamac iyo xogayaha xiriirka kubadda cagta ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha samatar maxamed cabdilaahi iyo sidoo kale cabdi iidaan oo ku hadlaya afka kooxda ay wasaaraddu qaadatay maanta wasaarad ahaan aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan maanta halkan lagu shaaciyo kooxda kooxda ku ciyaari doonta magaca wasaaradda oo mabka team la odhan doono siday tahay wasaaraddu ama qorshaha wasaaraddaba horena ugu jirtay isagoo nagu hogaaminayo wasiirka wasaaradda iyo agaasimaha guud waxa weeyaan in la dhiirigeliyo dhallinyarta farxad bay tahay inaan ka soo qayb galo xafladan lagu shaacinayo naadiga ku ciyaari doona magaca wasaaradda xiriirka golayaasha oo runtii aan qirayo inay tahay naadi u qalma inay ku ciyaaraan magaca waxaanu u nimadnay wasaaradda xiriirka golayaasha iyo dastuurka annagoo weydiisanay kaalmo dhalinyaranimo waxaanan ugu mahad celinayaa wasiirka xiriirka golayaasha iyo dastuurka sida howlkarnimada dadnimada iyagoo hirgelinaya siyaasadii dowladda inayna qaabilaan korka ka saartaan mas'uuliyadda kooxda noona ogolaadaan inaanu ku ciyaarno magacooda agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka isaguna munaasabadani ka hadlay ayaa waxa uu sheegay marka koowaad in koox ciyaareed la sameeyo ama ciyaaraha la dhiirigeliyo waa qodob dastuuriya waa talabaada ciyaartu waa dhiirigelin waxay dhiirigelin u tahay dhallinyarada waxay dhiirigelin u tahay da'yarta soo kacaysa dhinaca kale waxaa laga helaa faa'iidooyin caafimaad faa'iidooyinka caafimaad ee ugu waaweyn ee ku jira kubadda cagta ama ciyaaraha isboortiga waxaa ka mid ah in maskaxdu ay si wanaagsan u fikirto habfikirka maskaxda ayay wanaajisaa kubadda cagtu ama dhammaan isboortiguba waxaa kaloo kubadda laga dhaxlaa dhaqanka laga dhaxlaa waxa weeye dhaqan wanaagsan dhaqan bulshaawnimo dhaqan uu qofku noqdo qof hogaamiya oo barta sida xogta loo wadaago sida koox loo hogaamiyo sida qaran loo hogaamiyo waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay oo hadalka iska daba qaatay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha boos mire maxamed gudoomiyaha guddida xuquuqlisaanka qaranka maxamed baaruud waxaanay si isku mid ah u soo dhaweeyeen kooxdani ay maanta qaabishay wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka waxaan doonayaa inaad xusuusiyo idinku fursad baa haysataan oo maalin walba waxaa ka daawanaysaan ciyaarihii ugu dambeeyey adduunka oo ku dayn karaysaan waxaan islaahaa Soomaalida markaan saa dhalinyarto eego jidhiskuunbaa idinka dhiman jidhiskii ma aha inaad balaarta maaha laakiin jidhiskii ahaa tababar inaad samaysa mar walba jidhku siduu sare ugu qaadmi karo oo aad u yeelato energy badanna aad u yeelato halkan waxaanu ku fulinaynaa horta siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Muuse Biixi Cabdi oo ballan qaaday in kor loo soo qaado dhalinyarada ciyaaraha waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadnaqayaa wasiirka xiriirka golayaasha iyo madaxda wasaaraddiisa oo ah wasiir lafdhabar u ah howlaha dhalinyarada oo meel walba nala jooga waa wasiir u heelan mar walba nala jooga mar walba meesha ciyaaraha yimaada oo ay hawshiisu u badan tahay waxaan kaloo wasiirka ka codsanayaa inuu marka ugu horreysaba seminaar dastuurka uu furo dhalinyaradan si ay dhalinyarada kale iyo sportska iyo waxa ay u sii gaarsiiyaan ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay oo munaasabadani soo afmiray wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka mudane maxamed xaaji aadan cilmi waxaanuu ka warmay muhiimadda ay u leeyihiin qaranka ciyaaruhu muhiimadda ay xukuumadda u leedahay qadirinta dhalinyarada uu hogaaminayo madaxweynaheena Muuse Biixi oo garanaysaan inay ku qoran tahay siyaasadda oo xisbigani uu leeyahay dalkeena oo lagu qiyaaso in 75% ay dhalinyaro yihiin haddaynu doonayno dalkeena inaynu badbaadino haddaynu doonayno inaynu hore u marino macnaheedu waxay noqonaysaa marka populationka ugu badan waa 75% inaynu marka dhalinyarada hore u marino hadday tahay heer aqooneed oo waxbarashada iyo tayeynteeda hadday tahay heer shaqo abuur oo madaxweynaheenu uu bilaabay wax la yiraahdo shaqo qaran shaqo badanna dhalinyaro badanna loo qaatay intii la qaadi karayay weji kasto aynu u hormarino marka dhalinyaradeenna dhinaca ciyaaraha dhinaca waxbarashada shaqo qaran waa go'aan la qaatay
waa go'aan xukuumadeed oo madaxweynuhu ku hogaaminayo runtii ciyaaruhu waa laga sheekeeyey xagga shareecada islaamka nabigeena ayna amray calayhi salaatu wasalaam ciyaaraha in la sameeyo waaba sunne waxay kale oo muhiim ku tahay isdhexgalka oo maalin walba gobol baad u tagaysaa integrationka dadkeennii hore isma aqoonin oo qolo la isma haysan jirin iminkana waan u malaynayaa inaan in badan oo aydan qoladiina aqoon ah isku tiim tihiin qofka waa in lagu saleeyaa qiimihiisa waxa uu yahay waxtarkiisa iyo waxa weeyaan iyo wax uu qaban karo laakiin ma aha inaad sawir kale uu maskaxdaada ku jiro taana waxa weeyaan insha Allah qabyaaladda iyo la dagaalankeeda iyo dhammaanba xumaanta dhalinyarada tiimka isku ahay iyaga isku qolo ah iyaga isku reera iyaga isku maxaan dhahay fikra iyaga isku wax ah waxaanu kale insha Allah soo kordhin doonaa inaynu ku darsanno dhammaanba dhalinyarada kooxaha ciyaaraha sidaan wasiirkana ku ballanay heshiis baanu ka galeynaa waxa weeyaan aynu dastuurkana ku barno sidaynu ciyaaraha u baranayna dastuurkana aynu ku darsanno waayo dastuurkeenu waa sharcigii dalkeena lagu hogaaminayay qof waa mas'uul inuu barto waxa uu khaldayo iyo wuxuu xaq u leeyahay labadaba aad baan u soo dhaweynaynaa inaad maxaan dhahay runtii aad magaca wasaaradda ku ciyaartaan magaca wasaaradda in lagu ciyaaro wax weyn nooma sii aha laakiin wax weyn noo ah inaan maxaan dhahay aynu wax wada qabsanno waxa weeyaan oo aynu muujinno midnimadeena iyo maxaan dhahay iyo isbarashadeena iyo ka qayb qaadashada intaynu ugu beegan dalkeena iyo maxaan dhahay difaaciisa ciyaaru waxa ka mid yihiin waxyaabaha dalalka adduunka lagu barto gabagabadii waxa halkaas wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka agab ciyaareed oo kala duwan ku wareejiyay kooxdaasi kubadda ku ciyaari doonta magaca wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee ay maanta wasaaraddu qaabishay sidoo kale wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha boos mire maxamed ayaa shahaado sharaf ku doonsiiyey wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka maxamed xaaji aadan cilmi sida hagarlaanta ee uu dhiirigeliyo dhalinyarada reer Somaliland iyo qaabilaadda ay wasaaraddiisu qaabishay kooxda dhalinyarta ah Cabdilaahi Raash telefishinka caalamiga Somali News magaalada Hargeysa